Abdirahmaan Cabdishakuur iyo Yuusuf Maxamed Siyaad indhacde oo ay maaragtay tacaddi ay u geysteen qoys ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada Muqdisho gaar ahaan maaragtay halkii habeen hore lagu dagaalamayay oo ciidamada maaragtay ay ka amar qaadanayeen Abdirahmaan Cabdishakuur iyo indhacde oo iyagu markaas u joogay halkaas inay difaacaan Abdirahmaan Cabdishakuur waa dagaalkii habeen hore ka dhacay maaragtay agagaarka Tarbuunka guriga Abdirahmaan Cabdishakuur uu ka deganaa halkaasi ayaa waxa dhacday in maaragtay tacaddi ay u geystaan qoys reer Koonfur Galbeed ah gaar ahaan degmada Afgoy ka soo jeedaan qoyskaasi oo gurigoodii Abdirahmaan Cabdishakuur iyo indhacde ciidamadoodii ay galeen gurigaasi oo ahaa guri dabaq ah si halkaasi qoryo ay u saartaan oo ay ula dagaalamaan ciidamadii oo ka soo horjeeday madaxweynihii waqtigiisa dhacay balse maxaa dhacay qofkii guriga iska lahaa oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed qof oo maaragtay dagaal aan shuqul ku lahayn oo dawlad aan ka tirsaneen qof iska ganacsato ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu diido oo yiraahdo aniga shuqul ma lii waxaan ilma ay jooga meeshaan dhibaato ay keenay banaankayga istaaga balse maxaa dhacay waxaa dhacay in ciidamadii ninkii injineerka ahaa oo gurigaasi oo deganaa oo muwaadinka ahaa maskiinka ahaa in halkaasi ay ku dilaan isla mar ahaantaasina ay dhaawacaan laba qof oo kale oo waardiyaal ah oo gurigaasi joogay waxay soo qaateen ilaa 13 qori oo gurigaasi taalay ilaa ay hadda maaragtay indhacde iyo Abdirahmaan Cabdishakuur koodna kama uusan hadlin tacdiyadii ay geysteen Abdirahmaan Cabdishakuur sida aan ognahay indhacde waa ka seenaa qof wuxuu iska ahaa iska mooriyaan ah oo maaragtay hogaami kooxeed ah oo uusan ahayn markii ugu horeysay uu tacaddi u geysto dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed waxaan ognahay in maaragtay Shabeellaha Hoose tacaddi badan uu u geystay ilaa iyo intaas oo qof ay aakhir jiraan oo asiga hore u dilay qoysas badan oo hore u dhibaateeyay indhacde la yaab ma lahan laakiin qofka aniga aan islahaa waa qofka musharaxiinta ugu macquulsan oo maaragtay ii sheeg hadaladiisna ay ka muuqdaan qof oo maaragtay ahludiin waa isdhahay waa musharax macquul ah oo maaragtay odkar ah oo Soomaalida oo aan islahaa wuxuu noqon doonaa qof Soomaalida u dhaxaynayo ilbax oo maaragtay iska ilaalinaya xaqa iyo maaragtay aan islahayn laakiin waxaa dhacday in maaragtay Abdirahmaan Cabdishakuur oo musharax Soomaalnimo sheeganaya oo berina raba inuu asiga maaragtay ii sheeg ummad soo hor istaago oo maaragtay Soomaalnimo ula hadlo ayaa waxaa dhacday in habeen hore laba maalin laga joogaa dagaalkii uu dhacay ciidamadiisa tacdiidii ay geysteen ilaa ay hadda Facebook-giisa wuxuu ku soo qoray ilaa 99 qoraal oo maaragtay ku mucaaradayo dawladda waqtigeeda oo dhamaaday oo farmaajo asigoo dhahayo farmaajo uma tacsideeynin shacabkii magaalada Muqdisho balse su'aasha aniga aan qabayaa waxay tahay Abdirahmaan Cabdishakuur ciidamada tacdiidii ay geysteen adigu ma ka tacsideysay oo raali garin ma ka bixisay oo ma sheeganayso diyaar ma u tahay hadii oo qalaasaan waxan ay ka dhamaadaan in maaragtay qoyskii iyo maaragtay ehelkii adiga dhibaatada ciidamada ay u geysteen inaad raali gareysido maaragtay oo xaal marin aad la sameeysid ilaa ay hadda kama aadan hadlin midaas waxaan u aragnaa siyaasadaan iyo maaragtay maxaad iga qaadi kartaa ciidan ay la jooga hadda ku baaniyo maaragtay waa hubaysan hogaami kooxeed baan ahaayaan u arkaa laakiin se waxaa dhici doonta maalin aan maanta ahayn in la xisaabtamo oo la soo horfariisto oo markaas adiga aad hadid maaragtay uma maleyninin iyo ma ogeen iyo raali garina hadda dhiiba iyo hal iga raali ahaada iyo camaamada madax idinka saaray iyo maaragtay camaamadii ay iga dhacday iyo wax aan loo joogin akhrin doonto haddaan kuu sheega fursada haysata hubkii aad bilaqaysateen iyo hantidii aad qaadateen dib u soo celi isla mar ahaantaasina dadka dhaawacyadooda isbitaalku ku jiro ciidamada rasaas ay ku dhufteen daaweyntood iyo maaragtay nin Soomaaliyeed iska dhig qofka aad dishayna maaragtay ehelkiisa la xaaltan oo maaragtay kala hadal ma haddaba qoyskaasi dhibaatada aad u geysatay waa inaad si degdeg ah maaragtay ii sheeg aad raali galeen aad ugu bixisaa isla mar ahaantaasina aad u xalmarisaa waa diiday Soomahan waa ogahay bari ma hana bari dambo inta ugu liidato siyaasiyiinta aan hadlaynin
oo maaragtay Soomaalida kuwooda ugu badan oo maaragtay codadka laga raadiyo oo hoostooda lagu soo ordo oo maaragtay marka wax laga rabo waa anaga waa ogahay siyaasiyiinteeni inay liitaan inaysan kula hadlaynin inaysan ka hadlaynin muwaadankooda la dilay oo maaragtay dhibaatada u geystay laakiin waxaad ogaataa shacabkeeyagi ma ahan shacab sabraya ma ahan shacabkeeyagi shacab oo maaragtay dulmi qaata oo maaragtay daciif ah wax kasto loo akhriyo siyaasiyiintooda oo kale shacab noocaas ah ma qabno waad ogtahay xilligii farmaajo aad u sacbatumayseen oo weli aad la jirteen 2 sano iyo hordhow ayaa la marayaa anaga oo kaliya ayaa ahayn mucaarad Soomaaliyeed hadda idinka ayaa maaragtay number 1 aad iska dhigaysiin dadka kaliya dawladda ka soo horjeeda waad ogtahay 13 bishii maaragtay December 2008 anaga ayaa idinka horeynay anaga ayaa bilawnay ilaa ay hadan hal qof oo shacabkeeyagi ah oo istaagay mise maaragtay oo ka daalay maaragtay xurriyadii iyo maaragtay hadalkii Mukhtaar Roobo inuu san jirin haddaba waxa ogaataa inaan marnaba aan ka aamusi doonin aan laga hari doonin adiga iyo indhacada xisaabta ma bay ugu jirba qofka aan ka rabo arintaas oo dhan inuu istaago isla mar ahaantaasina xalliyo waa adiga Cabdiraxmaan Cabshakuur diiday aday ku taala waa isku imaan doona 7 xildhibaanada ahaa weli magacooda lagama tirtirin digil miraf la haliitaan haday rabaan beri marka musharaxa tahay waa u baahnaan doontaa waa u imaan doontaa laakiin shacabkeeyagi sida ay ku soo dhaweynayaan iyo talaabada ay qaadayaan iyo jawaabta ay ku siin doonaan markaas aad arki doontaa iga raali hada reer awkaysiin oo raali hada eeda aan ku xumo waa markiin koreyti oo maaragtay sheegada af mahaatiriana ka doohow mijeelayna intaana ka doow haddaba saas daraadii af mahaatirin ka doohay oo banagalad ogolay oo raali haday 5 sano ku badan maaragtay social media ka gayli hayna hal maalin oo af maatirin ka dooh ma jirto laakiin geeg may badantay ka sabtay intaana ka dooha oo ay raali haday waa raali garin ku dhiibay ku taabtay afkii ayow eedyada maadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh